guddida doorashooyinka ee gobolka Saaxil ayaa caawa ku dhawaaqay natiijada golaha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka Saaxil. ugu horeyntii isagu waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada komishanka doorashooyinka Soomaaliland Maxamed Cumar waxaanu ka warramay sida ay saddexda xisbi qaran ay kala heleen kuraasta golaha deegaanka degmada Berbera. anigoo raacaya qodobka 130aad ee xeerka komishanka doorashooyinka xeer number 19/2020 waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaa natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka degmada Berbera. sida loo kala helay kuraasta golaha deegaanka waa sidan soo socota. xisbiga awcid wuxuu ku guuleystay 3 kursi. kuraasta uu xisbiga kulmiye ku guuleystay waa 5 kursi iyo kursi jajaba. wadarta guud ee helay waa 6 kursi. xisbiga wadanina wuxuu ku guuleystay 3 kursi iyo kursi fraction. tirada guud ee ka codeysay degmada Berbera xisbiga awcid 14,489 cod. xisbiga kulmiye 23,804 cod. xisbiga wadani 15,477 cod. wadarta guud ee ka codeysay degmada Berbera waa 53,779 cod. xisbiga waxaa ku guuleystay number 101 Maxamed Ibrahim Ismaaciil oo ku guuleystay 3,160 cod. waxaa ku xiga Axmed Xaaji Cali Caynabo oo ku guuleystay 1,679 cod. xildhibaanka saddexaad waa Jaamac Maxamed Cabdi Caatay oo ku guuleystay 1,650 cod. wuxuu helay 3 kursi. xisbiga ucid xisbiga kulmiye oo ku guuleystay waxa ugu horeeya 201 cafan Abdishakuur Maxamed Xasan 5,870 cod. 207 Cabdirashiid Nuur Wacays Buraale 30 205 Axmed Cabdilaahi Weydiiriye 2,400. 211 Maxamed Xaaji Maxamuud Maxamed 2,073 cod. 209 Cali Cabdi Maxamed Cali 1,995 cod. 202 Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf 1,930 cod. kuraasta uu xisbiga kulmiye ku guuleystay waa 5 kursi iyo kursi jajaba. xisbiga wadani waxa ugu horeeya 313 Nuur Cabdi Jaamac Cabdi 2,456 cod ayuu ku guuleystay. 303 Aadan Xuseen Yuusuf Xasan 2,627 cod ayuu isna helay. 302 Alif Maxamed Cabdilaahi Cilmi Xasan 1,441 cod ayuu ku guuleystay. 305 Baasha Cabdilaahi Ibraahim 1,389 cod waa kursigii isna jajabka ahaa. wadarta guud ee ku guuleystay xisbigu waa 3 kursi iyo kursiga jajabka. wadarta guud waa 4 kursi. aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin. dhinaca kale isagu waxaa halkaasi ka hadlay Muuse Cabdi Xasan oo ah gudoomiyaha komishanka qaranka ee gobolka Saaxil. waxaanu halkaasi ka xaadiriyay 10 xildhibaan ee ku soo baxay golaha wakiilada ee gobolka Saaxil. محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. annaga oo ka duulayna qodobka 130aad ee xeerka doorashooyinka guud iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number 19/2020 annagoo maanka ku hayna ahmiyadda ballaaran ee qaranka ay u leedahay ku dhawaaqista doorashooyinka gobolka Saaxil. annaga oo tix raacayna isugeynta wadarta guud ee codadka ansaxay ee degmada iyo gobolka Saaxil dhammaantood ee heer qaran. annagoo garwaaqsan daafurnaanta la xidhiidha tirinta iyo xaqiijinta codadka murashaxiinta saddexda xisbi qaran waxaanu halkan kaga dhawaaqaynaa natiijada horudhaca ee golaha baarlamaanka gobolka Saaxil. guud ahaan gobolka Saaxil waxaa ka codeeyey 65,768 codbixiye. waxa sida xisbiyadu u kala horeeyaan xisbiga ucid waxa uu ku guuleystay 3 xildhibaan oo ugu horeeyo
cali jaamac raale barre cali qaran oo helay 3,362 cod maxamed jaamac liibaan cawaale oo helay 3,036 cod mubaarak xuseen maxamed xeeldheere oo helay 2,384 saddexdaa xildhibaan waxay kaga soo baxeen xisbiga ucid oo ku guuleysteen xubinimada baarlamaanka xisbiga wadani xisbiga kulmiye waxa ugu horeeya injineer xirsi cabdilaahi xirsi oo dawaa oo helay 5,167 cod xildhibaanka labaad ee xisbiga kulmiye waxa weeyaan aadan cismaan xarbi cawaale oo helay 4,790 xildhibaanka saddexaad waxa weeyaan cabdilaahi muuse cabdi cawaale oo helay 3,318 xildhibaanka afraad waxa weeyaan cabdirashiid cabdilaahi muuse oo helay 2,478 xisbiga wadani waxa uu helay 2 xildhibaan iyo xildhibaan ku soo baxay jajabka labada xildhibaan ee hore waxa weeyaan cabdiraxmaan yuusuf maxamuud oo helay 3,459 xildhibaanka labaad waxa weeyaan xasan cumar xasan rooble oo helay 3,026 xildhibaanka saddexaad waxa weeyaan ku soo baxay codka jajabka ah cabdiraxiim hugur cabdi guule xisbiyadu sida ay codka gaargaarka u kala heleen waxa weeyaan xisbiga ucid wuxuu helay 20,456 cod xisbiga wadani xisbiga kulmiya wuxuu helay 26,567 xisbiga wadanina wuxuu helay 18,745 cod sidaas ayay natiijadu ku ansaxday waa xamse jaamac yare telefishinka caalamiga badda cas 24 magaalada berbera